Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waa nabad daawadayaal guud ahaantiinba goob kasta idin naga daawanaysaan iyo goor kasta idin tahayba waa ku soo dhawaada warkii telefishinka caalamiga ee RBC oo idinkaga imanaya stuudiyaha koobaad ee telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warka waxaad la socodsiin doontaa haddii Allaha awood la ogolaado anigoo ah Hiba Qaali Cilmi. Wararkan idin hayna habeenkii caawa qodobadooda ugu doorka lehna waxaa kamid ah madaxweyne koobiyo 70 jir oo badbaadiyay laba gabdhood oo ku dhacay badda. dagaal beelad khasaare geystay oo ka dhacay deegaanka Ari Cadeeye ee gobolka Sool. qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. daawadayaal qodobadaasi waxay hayaan wararkan idin hayno habeenkan caawa qodobadooda ugu doorka leh. imika yaatana waxaad u diyaar garowdaa qodobadaasi iyo warar kale oo faahfaahsan. madaxweyne koobiyo 70 jir oo badbaadiyay laba gabdhood oo ku dhacay badda. faafahinta warkaasina inoogu hayo Wariyam Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. madaxweynaha wadanka Portugal Marcelo Rebelo de Sousa ayaa badbaadiyay laba haween ah oo dhibaato kala kulmay badweynta kadib markii ay la qalibatay doon yar oo ay saarnaayeen. Marcelo Rebelo de Sousa oo koobiyo 70 jir ah ayaa sabtidii la soo sawray isagoo u dabaalanaya dhinaca doonta gabdhaha la qalibantay xilli ay halis ugu jireen in ay biyaha ku haftaan. markii dambe ayuu saxaafadda u sheegay in haweenkaasi uu hir ka soo qaaday meel kale. madaxweyne Rebelo de Sousa ayaa hadda ku damaashaadaya gobolka Alquerque wuxuuna booqashooyin kala duwan ku maray dalkaasi si uu u dhiirigeliyo dadka dalxiisayaasha ah. xafiiska wararka ee golaha RBC News dagaal beelad khasaare geystay oo ka dhacay deegaanka Ari Cadeeye ee gobolka Sool. faafahinta warkaasi inoogu hayo Maxamed Jaamac Ismaan. faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal beeleed deegaanka Ari Cadeeye ee gobolka Sool ku dhex maray beelo walaal ah kaasoo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dagaalka oo dhex maray maleeshiyad hubeysan oo ka soo wada jeeda deegaanka Ari Cadeeye ayaa sababay dhimasho 4 qof iyo dhaawac. tiro kale oo kamid ah dhinacyada dagaalamaya dagaalka ayaa salka ku haya aanooyin qabiil iyo dilal maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Ari Cadeeye ee gobolka Sool. ciidanka Soomaaliland oo ka soo baxay magaalada Laascaanood ayaa ku soo wajahan deegaano ka tirsan kuwa lagu dagaalamay. mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda deegaanka Ari Cadeeye. waa Maxamed Jaamac Ismaan, xafiiska wararka ee golaha RBC News. qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. faafahinta warkaasna waxay nooga diyaariyay anigoo ah Hiba Qaali Cilmi. qarax ayaa goor dhaweyd ka dhacay meel u dhow iska taarabuunka gaar ahaan wadada hormarta isbitaalka Digfaar. qaraxa ayaa noociisu ahaa miinada nooca dhulka la geliyo. qaraxa ayaa waxaa lala eegtay gaari aysan xabadu kareynin oo goobta marayay, waxaana waxyaalo ka soo gaadhay mooto bajaaj ay dad saarnaayeen. weli si rasmi ah looma xaqiijin khasaaraha ka dhashay qaraxaasi, laakiin goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay in gaarigii lala beegsaday iyo dadkii saarnaa ay ka badbaadeen qaraxaasi. xafiiska wararka golaha RBC News. waa tahay daawadayaal qodob wareedkaasi waxa ugu gabagabo iyo gunaanadba u ahaa gabi ahaanba waxaan idinka haynay war dunida guudkeeda iyo deegaanada Soomaalidu degto. warka waxaad kala socoteen telefishinka caalamiga ee RBC 24 TV. warka waxaad la socodsiinaysay anigoo ah Hiba Qaali Cilmi. intan tan iyo warka xiga ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa idil ahaantiin sidaas iyo amaalaan. assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.